wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boos Mira Maxamed oo ay weerinayaan agaasimaha guud ee wasaaraddaas iyo maamulka gobolka iyo ka degmada Burco ayaa maanta si rasmi ah u daafuray wajiga saddexaad ee mashruuca rajaabuurka dhalinyarada Somaliland kaasi oo ah mashruuc loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ardayda reer Togdheer ee aan awoodda dhaqaale u saamaxaynin inay galaan jaamacadaha waxaana mashruucan ardayda jaamacadaha aan awoodin lagu caawin doonaa 40% dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada jaamacadda Cabdi Xiis Cabdi iyo sidoo kale aqoonyahan Axmed Maxamed Shaqale oo ah la taliyaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada isla markaasna kamid ahaa aasaasyaasha ururka Sotra ayaa sharaxaad ka bixiyay mashruucan waxaana kamid ah hadaladoodii ururka Sotra runaantii munaasabadani maanta u joognaa maahantii ugu horeysay sanad walba waa munaasabada oo qabanno waxyaalaha ugu weyn oo ugu talagalaynaa in waxa jira boqolaal dhalinyaro oo ka baxa waxay dugsiyada sare laakiin awood u lahayn inay galaan ama ay ka faa'iideystaan waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda dadkiina mas'uuliyad bay naga wada saaran wadareed oo ah hadeen dhalinyaradii nahay hadeen maamuladii nahay kala duwanaa dawladaha hoose iyo tii dawladda dhexe ama dawladda sare inaynu dadka il gaar ah ugu eego marka waxaan aragnay markii aanu dadkiina qorshe dad la gabay inaanu runaantii isku dayno inaanu fursad u abuurno markaanu magaca qaadanay rajo abuur qof markii hore runaantii ka qancay amba aan islahayn way ku suuragali karaysaa in jaamacadii bilowdid ayaanu niriwad bilaabi kartaa 40% ayaanu ka bixinay inta kalena aad iska bixin marka operation team ka wajigiisa saddexaad Burco ka bilaabay laakiin shantii sano dambeysay la waday oo xukuumadii hore joogtay Somaliland oo hogaaminayay mudane Axmed Maxamed Siilayo iyo Siilici ciidanka imika ah ay runtii kaalin weyn ka geysteen mudane Muuse Biix Cabdi oo maanta talada kaayana ku rujooynahay mashruucan gacan weyn ka sii geysto oo si taageero Sotra ma qabato xagga waxbarashada kaliya dhalinyarada tartan baan u gelnay tan waa aragnooni dhalinyarada Somaliland meel ay tahay sanad walba balmaraan u siinaa oo guddoonsiino ku sharafnaa oo nurana halka dadalka soo wada socon karaysan dhaqaaqa horo dhaqaaqa waxaanu sameeynaa cilmi baaris xog saarno soo bandhigno oo xaqii maadaama dawladdu ay dhaaftay xog sida loo helo inuu xog saarno sidii xog loo heli lahaa marka inuu barnaamijkan mar labaad fursadda mar saddexaad u yimaado bulshada reer Burcana runtii waa fursad weyn oo kale waxaan aaminsanahay boqolaal dhalinyaradeena reer Togdheer ka faa'iideysan doonaan sanadka koobaad ma noqon doono kii labaad kii saddexaad waxaan doonayaa barnaamij si socdo inuu noqdo oo reer Burco ayagoo mida jaamacadihii New Generation ay la joogtaan jaamacadaha kale gobolka iyo maamulkii degmada la joogay maamulkii gobolka inaynu noqono barnaamij dadkeena awood u lahayn inay wax bartaan in xoog u saarayaan bartaan maanta aniga farxad gaaray inta runtii in aan ka soo qayb galo xafladani anigoo runtii kamid ahaa aasaasyaashii ururka Sotra 2014 October aasaasay runtii ururka maanta waxaan ku faraxsanahay muddo laga joogo 7 sano kadib in ururka maanta cagiisa isku istaagay iyadoo dhalinyarada reer Somaliland oo sharaf iyo karaamo mudan oo gobolada Somaliland dhan kasoo kala yimid amba wax ku soo bartay milboora ma ilaa baran maanta ururkii madaxdiisa iyo hawlwadaadiisa yihiin ana runtii ujeedada guud aan ururka oo asaasnay ma yahay inaan dhaqaale ka helno mana yahay inaan lacag ka helno sidoo kalena ma yahay inaan magac iyo manfac midna ka helno laakiin waxay inaan aragno dhalinyarada Somaliland runtii sharaftiga karaamada mudan in iyagoo wadankooda jooga iyagoo wadankooda wax ku bartay iyagoo wadankooda runtii ku dhashay oo meel loo bixin in haddana kartidooda iyo aqoontooda iyo muruqooda iyo maalkooda ay iskaashadaan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boos Mira Maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa ururka Sotra ku amaanay dadaalka iyo hilka uu la barbar taagay dhalinyarada Somaliland waxaana kamid ah hadaladoodii runtii Cabdiwaaxid baa kelmadayadii yiri wasiirkuna uu ka dambeyn doonaa wuxuu baanaad iyo ugu faraxsanahay hawshan aad iyo aad ka qiimaha badan oo aan runtii marxaad ka nahay intii imika 7 sano u dambeeyay in barnaamijkan uu socday oo wax weey wadanka dhan ka socday oo jaamacadaha dalka dhan runtii ay gacan ka geysanayeen Axmed Shaqale iyo dhalinyarada kale wax weey Sotra ee hawsha gacanta weyn ka geysatay isku dubardayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa la Axmed waa nin dhalinyaro oo firfircoon oo mutadawwac
way adagtay dadka Soomaalida ah waxa weeye dadka caynkaas oo kale uu ku yar yahay waxaan leeyahay hadduu soo gaarsiiyay Burco imika galbeedka aad iyo aad hawshaas u badnayd waanu soo dhaweynaynaa waanu dhiirigelinaynaa idinkana waxaan rajaynaynaa aad uga faa'iideysan doontaan insha Allah runtii waan ku faraxsanahay maanta inaan halkan kula kulanno dhalinyarta reer Togdheer ururka Sodra iyo wasaaradda waxbarashada iyo barbajoogga iyo jaamacadda New Generation ay iska kaashadaan waxbarashada jaamacadda inay bilaabaan iyagoo laga dulqaaday ama laga bixinayo 40%. waxa Ilaahay loogu mahadnaqo jaaliska isku sidkan inay heleen dhalinyarta reer Togdheer waan u mahadcelinayaa inta soo sheegayna waajibaadka runtii ay ka soo baxeen ururka Sodra oo Hargeysa aad ugu aqaanay haddii ay soo gaareen bariga iyo Togdheerna si gaar ah mar labaad ugu mahadcelinayaa soo kale jaamacadda New Generation oo jaamacadda foolaadka dalka iyaduna inay Burco soo gaadhay iyaduna runtii waan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa waxbarashada idinkuna waqtiga iyo lacagta aad ku bixiseen dadka kalena idinka kaalmeeyeen intiina maanta halka fadhiyo inta maqaniba inaad ka faa'iideysataan oo siday tahay insha Allah aad uga soo baxdaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin safar baanu ahayn halkan baa Axmed Shaqalo nin firfircoon oo meel walba jooga lagala kulmay markaas aan maanta dhalinyarta joogto inaan dhaafine aynu u sii camirno xafladda burlaasnimada baan ku soconay insha Allah taala waan ku soo noqon doonaa waxaan leeyahay inuu naf kala baxo barigu ka fogay caasimadda wax badan ma soo gaaraan laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama xukuumadda iyo caasimadda wixii ay galbeed noqdeen dheefta iyo socodkii wax walba in insha Allah taala doorkan bariga ku badan doonaan aad iyo aad u mahadsantahay ururka Sodra ayaa kaalin muhiim ah ugu jira bulshada Soomaaliland iyo dhalinyarada waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.